iskaashatada magaalada Saylac ayaa galabta doortay gudoomiye iyo hogaaminayay xilliga soo socda iyadoo horay u haan jiray gudoomiye Saleebaan ayaa maanta waxa xilkii la wareegay Saleebaan Abaadir ay u doorteen cod gacantaagana u qaadeen iskaashatadani ugu ayaa munaasabadaasi waxa ka hadlay gudoomiyihii hore ee iskaashatada magaalada Saylac isagoo si weyn u dhaliilay wasaaradda kalluumaysiga isla markaasna uu ku tilmaamay mid wasiirka wasaaradda kalluumaysiga oo xaaladda Saylac aanu dhag jalaq u siinin isla markaasina uu dhagaha ka gaabsaday iskaashatadani muddo badan bay dhisnay muddada ay dhisnay annagu siyaasad xagga dawladda iyada Soomaaliland ayaanu ka dhaqaaqnay halkan maraakiib ajaanib joogtay oo shirkado alaab baan ku lahaa ku kala ku dulkireystay wasaaraddu way eegaysaa wasaaradda wasaaradda kalluumaysiga waxaan leeyahay wasiirka wasaaradda kalluumaysiga waxaan leeyahay waarniyo adduunyada ilaahay nin waliba maalmo taliya wasiir maalmo qof taliya maalmaha aad meesha joogtay ee talinayso ha noqonin sidii nimankii lagu sheegay wadaadada ee kaasi waa xagjir la lahaa war xagjir ha noqonin galbeed malaxniyo waxba kaaga dhacay bariga uun ha eegin xagga galbeed soo eeg oo dadkaaga waa kana u kaale oo ummadda waxa aad u qabanayso wax ula qabo oo waxa weeyaan magac baa qofka ka haray magaca ka haro sidoo kale signaalkaasi waxa ka hadlay gudoomiyaha cusub ee iskaashatada magaalada Saylac Saleebaan Maxamuud Abaadir Shirwac waxa uu ku dheeraaday in uu wax badan qaban doono isla markaana muddada uu cusub yahay uu kala shaqeyn doono kalluumaysatada hawlaha kheyraadka badda ee dadka walaalahay ii doorteen ee iyagu ii garteen inaan sidii si xor iyo xalaal ah aan ugu qaban doono uguna shaqeyn doono inta kaankayga waxa kalaan ka codsanaya anigu kulay waxaan nin iska hawl badan iskana socod badan dhagayn fara badan leh oo haday dawlad noqotiyo haday hay'ad noqotiyo haday meel ka soo noqoto cid igama horeynayso kaliya waxaan ka codsanayaa in wixii ila soo foosaaray ee hawshaasi kamid ah intii kaankooga ah cidii guddi aan u doorano iyo cidii maamul ee nagu xigta iyo bulshada kale kalluumaysatada in ay naga caawiyaan qof basharaan nahay wixii naga qaldan ama wixii naga qarsoon in arki weyno in iyagu noo soo wargeliyaan oo noo soo sheegan ayaan ka codsanayaa wasaaradda kalluumaysiga waxaan leenahay Soomaaliland Saylac waa ka gaar dhinac kasta kaga gaartahay annagu haddaanu kalluumaysatadina awal kuma jirin dalka Soomaaliland inay ku soo daraan oo dib u soo eegaan dadka ay u taliyaan kuwana waa kamid intaasi kadib ayaa gudoomiyaha cusub waxa uu noo soo kormeeray kaamti weyneed ee kaydiyihii barafka ee wasaaraddaasi taasoo ku tilmaamay qalabkani uu yahay in aan waxba kaydin karin barafka isla markaasna wasaaradda kalluumaysigu ay ka gaabinayso xaaladda guud ee barafkani kani waa haantii lagu ridayay barafka isla markaasina waxay noqotay mid guun ahaaneed baa u ekaatay geerash waxaad arkaysaa dusha iyadoo ay saaran tahay alaabtii barafka muraaxadihii oo iyagu aanan samayn karin barafkaasi si kastaba ha ahaatee wasaaradda kalluumaysiga ee magaalada Saylac ayaa iyadu ah ta ugu kheyraadka weyn gobolka Salal isla markaasina ayaan darro ay ku noqotay wasaaradda kalluumaysiga inay haysan kalluunka baraf ay ku meelayeen kalluumaysatadu marka ay kala soo baxaan badda Cabdisamed Maxamed Cabdilaahi Shinil News magaalada Saylac.